musharaxiinta kale ah Nuur Muhandis Guudcadde oo tartamaya xildhibaan golaha wakiilada ah iyo murashax Maxamuud Cabdi Cilmi oo taagan xildhibaan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo weheliyaan salaadiin waxgarad aqoon-yahan haween ayaa xafiisyo kala duwan ka furtay deegaano hoos yimaada gobolka Murudijeex. xafiisyadan ayaa waxay noqon doonaan xafiisyada ololaha kaambeynka musharaxiintan doorashadan isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee dhawaan dalka ka qabsoomi doonta. waxaana labadan murashax oo weheliyaan salaadiin xuqaal waxgarad aqoon-yahan xafiisyo ka furteen magaalooyinka Faraweyne, Maraaga, Dhabooloq, Laaleysta Bari, Laaleysta Galbeed, Abaarso iyo xafiisyo kale oo aad u tiro badan. salaadiin qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka deegaanadaasi ay xafiisyada ka furteen musharaxiintan kale ah Nuur Muhandis iyo Maxamed Cabdi Cilmi ayaa halkaasi ka hadlay, waxaana ay sheegeen inay garab taagan yihiin labadan murashax iyagoo u soo jeediyay in maalinta codeynta doorashada ay fartooda ugu codeeyaan labada murashax iyagoo adeegsanaya astaamahan ay leeyihiin ee kala ah bureeqada iyo 213. waxaananu xafiisyada u soo furay inaanu labada musharaxna idin keeno, labadooda nambarna idin keeno calaamadood. waxa weeyaan mujaahid Nuur Muhandis Guudcadde waxa uu sitaa calaamada bureeqa. qolka foodka markaad gashaan rag iyo dumarba laba waraaqood baa la idin dhiibayaa, mid waa tii golaha wakiilada deegaanka, ta baarlamaanka waxa sitaa tii Nuur Muhandis Guudcadde ayaa la idin dhiibayaa. mujaahid Nuur Muhandis Guudcadde bureeqa ayaad horteeda calaamadinaysaan. tii labaad ee injineer Maxamuud Cabdi Cilmi ee deegaanka la idin dhiibayaa 213 baad iyadana calaamadinaysaan. sidaa awgeed waxaynu isku baraarujinaynaa maalinta 31 May habeenimada qof waliba inuu kaadhkiisii diyaarsado. aroortii lama doondooni karo kuyuga law kala haya. rag iyo dumar waa inaynu codkeena halka ku ridnaa. yaa laynaga faa'iideysan codkaaga yaa lagugu caayin. meeshan Abaarso leeyahay waxay ka mid tahay xaafadaha ama magaalooyinka aan ku faano faanka iyagaasi aan u beedoobin. codka aad ka soo baxaa ayaa amba ku beedoobaya amba ku rumoobaya faanka aan ku faano Abaarso. marka waxaan idinka codsanaynaa maalinta ina goor hore toostaan ina kuyuga meel hore ka qabsataan ina calaamadiin hadda sii wada diyaarsataan. qof walba kaarkaaga halka dhigtaan imka sii diyaarsato sidaan labada musharax u soo saari lahayn. taasina warkeedii waa la dhameeyay. waxa la doonayaa maalinta foodka inagoo sidaa u taagan oo gacanta midig ku haysana kaararkii codeynta inaynu sanduuqa intaan dul istaagno codka la hubsano. markaas baynu gamaynaa. hana seexanina, ha fadhiisanina, istaanbooy ahaada, ha isdhiganina, dumarka soo saara, tabaabusheeya, nin walba halkaa joogta mas'uul ka noqo. dhammaanteen aanu guntano oo maxaan kula dhexda suunka ku adkaysano oo aynu codkeena hal meel marino. annagoo joogna xafiiskii degmada Faraweyne aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. diyaarna waxaan u nahay inaan u codeyno insha Allah. bismillaahi kariim. codkaana ay ku soo bixi doonaan insha Allah. soo dhaweynta diiran iyo dadaalka samayseen waanu idinku mahadnaqaynaa. intaa dabadeed intaa la idin faray oo adag baanu idinka doonaynaa. ballanteenu waa maalinta 31 May. cod kaliya khasaarinina, kaararkiina ilaashada, dadaala. qof walba kaaga iyo ku kala wad inoo soo qabataba waa ku ka. anta inagu ay naga sugayaan waa cod. inaguna waxaynu ka sugaynaa berri markay soo baxaan inaanay noogu dambayn maanta sidaa imika aynu u taagannahay ay berri toole ku soo noqdaan dadkii. halkan tuuladayadan Maraaga noogu yimid anagoo ah gudoomiyihii tuulada Maraaga waxaanu u soo dhaweynaynaa si weyn oo qiimo leh iyagoo oo noogu soo horeeyay tuuladayada siiye lambar 1kii inay shirkoodii ugu horeeyay maanta halkan tuulada ku qabtaan ugu horeyn. aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa. waanu codeynaynaa, waxba ka hagran mayno. reer Laaleys haddaanu nahay ilaahay ha soo saaraha garab galo. intii ku fadhiisata Allah ka yeelo, intii ku guuleysata Allah ka yeelo. sidii diyaar garowno inaynu baranno sida loo codeynayo, inaynu maxay ahayd aynu diyaar u ahayno labada xildhibaan inaynu codeyno. soo diyaar ma tiidin? reer Abaarso waxa la musharaxiinta Nuur Muhandis Guudcadde iyo injineer Maxamuud Cabdi Cilmi lafdhabartiiniga tihiin, lafdhabartoodiga tihiin. lafdhabartuna waa tii ay ku tamarinayeen. waxa la idinka rabaa inaad codkiina iyo codada doontaanba inaad ugu hiilisaan oo hiiliyo hooda la garab istaagtaan insha Allah. bismillaahi kariim. ilaahayna haynugu simo 31 May 31 May in aynu codkii ku ridno idamka Ilaahay
musharaxiintan kale ah nuur muhandis iyo maxamed cabdi cilmi oo kala taagan xildhibaan golaha wakiilada ah iyo golaha deegaanka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana u ballan qaadeen dadka deegaankaasi haddii ay codkooda siiyaan in ay wax ka qaban doonaan adeegyada bulshada ee deegaanadaasi. xafiisyada badanna waanu soo furnay waa xafiiskii 8aad oo noqonaya xafiiskii 1aad ee degmada Daarasalaam aan ka furno ama kii 2aad toddoba xafiis oo aanu ka soo furnay degmada Faraweyne ayaanu soo gabagabaynay kana waa degmada Daarasalaam oo waxa weeyaan waa abaarso in badan baad sugteen waad ku mahadsantihiin waanu idinku mahadnaqaynaa maalinta foodka waxay naga xigta 11 cisho waxaan ka badnayn ama 9 cisho inaad foodkana siisaan oo codkiina noogu hilisaan si aanu xuquuqaha idinkaga maqan xukuumadda dawladda dhexe iyo dawladda hoose baan idinku raadino ayaan idinka doonaynaa soo inaad diyaar uma tiidin inaad noo footaysaan waa idinka guddo sidaan horeba u sheegay waxaan joognaa deegaankaygii abaarsada deegaankaygii meel qariiba ma aha waxaanu ognahay inaad idinku tihiin ciidana soo saar lahayd idinkaana soo saaraya annakuna sidaa walaalkaynu ur sheegay haddaanu soo baxno ku guulaysano insha Allah waxba idinka hadhi mayno waan idin shaqayn doonaa waxa weeyaan halkaasna idin soo dagi doonaa waxba naga xumaan maayaan